السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارته سودو هذا وحن إن شاء الله تعالى ربنا إننا إجنو وردك دقة أو وحيرك هرسو دعي كاس أو كسابسان دقالك إيران يا إسرائيل وحد مريكان كايا وحكوسو بيري دقالكي إيران يا إسرائيل ودحيي وحن ربنا إن شاء الله تعالى إننا إجنو أو عن سلايرة إجنو developing story gan هدير سو دعايو ورك إسكو سو دبا دعايو وحا مريكان كا ويرري باليري saddex magaalo oo saddex meel oo nuclear lagu tuhmaayay in uu yaalo dawladda Iran saddexdaas magaalo ayaa waxay kala yihiin baa la yiri Isfahan iyo laba magaalo oo kale waxa arrinkan cambaareeyay qolyaha u qaabilsan atomic agency-ga Iran kaas oo Fordo Natanz iyo Isfahan saddexdaas meel oo Iran lagu filaayay inuu u yaalo nuclear-ka ayaa la duqeeyay saddexdaas meel waxa ay sheegeen in science yahanada wadanka Iran u dhashay in aysan joojin doonin Iran in ay noqoto wadan ku tiirsan korontadiisa iyo energy-giisa ku tiirsan tahay nuclear-ka sidaas la mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa hadda wax yar ka hor xaqiijiyay in weerarka marka ay qaadeen diyaaradaha B2 bombers ka loo yaqaano ay dib ugu soo laabteen meelihii ay ka kala kaceen si nabadgelyo ah madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale la filayaa in uu la hadlo dalka Mareykanka ka hadlayay la filayaa in uu la hadlo dadkiisa Mareykanka ah si uu u siiyo update-kii ugu dambeeyay madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha dalka Yahuuda ama dalka Israel ayaa isagu wuxuu sheegay in uu hambalyeynaayo madaxweynaha dalka Mareykanka on his bold action talaabadii geesinimada lahayd ee uu qaaday buu yiri waxaan uga hambalyeynayaa buu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka go'aanka uu qaatay xoog leh geesinimada leh kartida iyo wax tarka u leh waxa ay u horseedi doontaa buu yiri waxay u horseedi doontaa dalka ama gobolka intiisa gobolka waxay u horseedi doontaa buu yiri prosperity oo ah barwaaqo iyo nabadgelyo in Iran gacanteeda ay ka baxaan hubka nuclear-ka ama programkii nuclear-ka ay wadatay sidaas la mid ah madaxweynaha ayaa wuxuu la hadli doonaa dadka shacabka Mareykanka ah wax yar kadib Mareykankana talaabadaas uu qaaday waxa ka falceliyay miiriyaha dalka Iran kuwaas oo sheegay in ay horseedi karto level aan horay loo arag waxyaabahan waxa hore u sheegay Ayatollah Khomeiniga Israel waxaan ka rabaa Iran kaas oo horay u cadeeyay in hadii weerarka uu soo galo Mareykanka la qaadi doono talaabooyin aan la mahadinin ayuu yiri marka waxa hadda bilaabanaysa la yiri unprecedented level hor leh oo aan hore loo arag ayuu gaarsiiyay weerarkan Mareykanka ka qayb qaadashadiisa uu ka soo qayb qaatay waxa kale oo la sheegayaa in analyst ama qof siyaasadda maartay ka faalooda oo Ali Harb la yiraahdo ayaa wuxuu sheegayaa in weerarkan uu madaxweyne Trump uu ku soo qaaday dalka Iran ay gobolka gelin doonto ka dhigi doonto mid holacda waxa la ogaa in Hezbollah iyo Xuutiyiinta ay dhaqdhaqaaq wadwadeen Xuutiyiinta ayaa xilli hore waxay sheegeen in ay ka baxeen heshiiskii ay la galeen madaxweynaha dalka Mareykanka iyo guud ahaanba dalka Mareykanka kuwaasna waxa la filayaa in ay iyana gantaalo iyo wax ay soo bilaabaan inay soo tuuraan Iran waxa kale ay xaqiijiyeen in iyagana attacks weeraro ay ku dhaceen Natanz iyo Isfahan labadaas ay iyaga xaqiijiyeen laakiin Mareykanka ayaa wuxuu ku daray Fordo in ay qayb ka tahay so waxa kale oo jira in meelo fara badan ay ka jiraan dad isu diyaarinayo in ay mudaharaadyo iyo wax sameeyaan New York ayaa waxa la soo warinayaa in police ay ku fasaxday magaalada u dhow qaybaha masaajidda iyo meelaha lagu cibaadeysto ay ciidamo geeyeen baa la yiri New York ayagoo ka cabsanayo in uu dhaco
qas iyo lab waxaa kale oo asna 34 daqiiqo ka hor ka hadlay dagaalkan iyo weerarkan waxaa ka hadlay ninka la yiraahdo Bernie Sanders oo isagu ah senator kana soo horjeeday dagaalka Gaza si lamidana ka soo horjeeday dagaalka u dhaxeeyay Iran iyo Israel waxa uu sheegay koox buu hogaaminayay No More War la yiraahdo dagaalkana waxa la sheegay Mareykanka in uu ka qayb galay oo Donald Trump go'aanka uu qaatay asaga oo completely si gabi ahaanba iska indhatiray ama iska dhagatirayba hadalkii ka soo baxay National Intelligence-ga dalkan Mareykanka qofta u qaabilsan ee la yiraahdo Tulsi Gabbard Gordon baa la yiraahdaa gabadhaas ayaa waxay sheegtay oo xaqiijisay in Iran aysan ku jirin samaysashada hubka nuclear-ka oo programkeeda uusan ahayn mid hubaysan uu yahay mid shacaba madaxweynaha ayaa shalay wuxuu sheegay in gabadhaas warkeeda ay ku qaldan tahay she's wrong buu dhahay way qaldan tahay maadaama marka uu sheegay inay haweeneydaas ay qaldan tahay asagana ay u qaabilsan tahay national security-ga waxaan ka rabaa national intelligence-ga waa shirkadda hay'adda xuuraamka ilaahdee adduunka waxa ka socda xiriiro badanna ay la samaysay waddanka Iran arrinkan madaxweynaha isaga uma iska go'aansaday sheekadii ahayd marka labada isbuuc baan siinaynaa waxay iska ahayd sheeko raadgadasho ah saakay duhuradii maray ahayd baa waxaa lasoo qoraayay in diyaaradaha B2-ga ay ka baxeen jasiiradda Guam ku taala militariga ugu saldhig military oo weyn oo ku yaala dalka dibadiisa oo ku yaala Guam inay ka baxeen baa saaka lasoo qoraayay marka waa la iska ogaa inay wax jiraan laakiin kolley Iraniyiinta naftooda waxbay ka warqabeen Yahuuda Israa'iiliinta ayaa waxay sheegayaan inay si buuxda ay coordination ula samaynayaan oo ay kala shaqaynayaan Mareykanka reportska iyo waxyaabaha socda sidaas lamida leaderska dimuqraadiga oo ba iyagu ka aamusan intaan ka ahayn Bernie Sanders oo isagu ah senator dimuqraadiya oo laga soo doorto sano maleynayo state-ka Connecticut laga soo doorto oo cabaarba ka soo horjeeday dagaalada ay qaybta ka tahay xukuumadda Netanyahu waxa kale oo hadlay isna Senate Majority Leader ninka aqalka sare xukuma meesha anaga Cabdi Xaashi uu noo joogo ninka dalka Mareykanka u jooga ayaa isna hadlay kaasna wuxuu sheegay in qaraacida la qaraacay qaybaha nuclear-ka dalkaas Iran in uu qayb ka yahay nuclear weapon remains out of reach buu dhahay says US attack ensures nuclear weapons out of reach haddii dagaalkan ay ku qaadeen Mareykanka waxa uu joojin doonaa buu yiri in ay Iran ay soo saarto oo ay develop garayso hub nuclear inay samaysato marka madaxweynaha dalka sida Trump na wuxuu sheegay in Twitterkiisa uu ku soo qoray waxaan qaraacnay saddexdaas facility ama sites Isfahan Fordo iyo Natanz saddexda waa qaraacnay uu yiri marka hadda ayaan waxaan diyaar u nahay in aan wada hadal aan galno waa soo dhaweynaynaa buu yiri arrinkan hadeer waxaan diyaar u nahay in wada hadal la galo nabadana xilligeedii iyo hadda la jooga markii hore lama joogin inta Iran ay awoodda u lahayd buu yiri in ay soo saari karto nuclear weapons inay soo samaysan karto marka waxa kale oo asna Thomas Macy nin la yiraahdo oo kolley legislator ah oo Republican this is not constitutional buu dhahay dastuurka dalka wax waafaqsan ma aha buu asna ku canaantay laakiin cid dhageysanaysa ma dagaalka waa gacantii waa dhacday dagaalkiina waa la galay marka Trump hadii aan idin akhriyo wuxuu dhahay waxaan soo dhameystiray si guul ah waxaan ku guuleysanay in saddex site oo Iran iska leedahay Fordo Natanz iyo Isfahan aan soo qaraacnay diyaaradaheena ay dib ugu soo laabteen airspace-ka oo safe-ka waxaan tuuray buu dhahay bamam waaweyn kuwaas oo lagu riday meelaha loogu talagalay especially Fordo diyaaradahana waxay ku soo laabteen buu dhahay they are safely on their way so wax diyaaradana laga soo riday iyo wax naga noqday iyo wax naga dhibaatooday midna ma jiraan
buu ka wadaa kulley waxaan u hambaliyaynayaa buu dhahay ciidamada Mareykanka waxaan kale oo u hambaliyaynayaa Mareykanka ciidamadiisa ciidamo lamid ah adduunka kama jiro oo waxa noocan oo kala samayn karo now is the time for peace hadda ayaa waxaan diyaar u nahay in aan wada hadalno Iran maadaama uu yiri madaxweynaha aan ka taqluusnay nuclear programkoodii marka waxaan thank you for your attention to this matter ciidamada iyo dadkii kala shaqeeyay kulli buu u mahadnaqay Iran ayaa markaa waxay sheegtay in qaybta Fordow oo ah saldhigga ugu culus ugu weyn oo ugu adkaa in loo dhaco oo Israa'iiliyiinta hataa ay u dhici waayeen in qaybo kamid ah ay wax gaareen baa la sheegay so Iranian Tasnim News ayaa wuxuu sheegayaa asaga oo soo qaadanayo ama soo xiganayo dad madax ah oo jooga qoom magaalada la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in qaybo kamid ah ay wax ku dhaceen laakiin all of it aysan burburin oo aysan maaragtay noqonin sida laga rabay marka dadka waa nin qoloba falcelin bay ku haysaa wax unbaa saa isu daba socda updates ayaa socda madaxweynaha dalkana wuxuu sheegay in uu oo ah Mareykanka Donald Trump inuu shacabka la hadli doono dadka Amerikaanka ana u sheegi doono wixii dhacay iyo sidii ay wax u dhaceen daqiiqad ka hor ayaa waxa soo baxday haddana warbixin kale Trump oo ku hanjabay baa la yiri in ay jiraan meelo badan oo kale oo target u ah oo bartilmaameed u ah dalkan Mareykanka oo ku yaala dalka Iran waxa dhici doonto u dhahay ama nabad ama waxa dhici doonto u dhahay halaag baa ka dhici doona oo ka weyn wixii aan aragnay 8 bari oo la soo dhaafay xusuusnaada buu yiri there are many targets left meelo badan ayaa dhiman tonight was the most difficult of them all xalay ayaa ugu caawa ayaa ugu dhibta badnayd buu yiri laakiin waxaan sidaasna waxa kale oo most legal si sax ah ayaan wax u sameeyay dhahay oo sharciyad ah tan ugu dhibka badnaydna caawa ay ahayd laakiin hadii nabad galiyo si degdeg ah ay ku imaan weyso oo Iran nabad ay qaadan weyso waxa kale oo aan isku dayeynaa buu yiri in meelahaas kalena aan target garayno oo aan isku dayno dhahay in precision speed and skill xirfad iyo speed iyo hubnaansho oo precision ah inaan ku sameeyno ayuu yiri madaxweynaha hal daqiiqo ka hor ayuu soo qoray oo qoraalkiisa ka soo baxay sidaas la mid ah waxa uu u mahad celiyay 5 daqiiqo ka hor inta hadda aan ku jirnay live kan wuxuu u mahad celiyay Netanyahu ayuu u mahad celiyay waxaan rabaa dhahay inaan u mahad celiyo Netanyahu aanan u hambaliyeeyo buu yiri xaaskiisa we worked as a team like perhaps no team ahaan ayaan u wada shaqaynay buu dhahay si aan weligeed aan laba team u wada shaqaynin ama laba koox waxaan waqti badan ayaan soo qaadanay buu dhahay in aan baabi'ino horrible threat to Israel threat kan ama hanjabaadan aadka u dhibka badan oo u xun oo hanjabaada ku ahayd Israel ayaa waxaan ka baabi'inay buu yiri anaga iyo Netanyahu marka wuxuu sheegayaa in oo nuclear programkii Iran ay completely obliterated eragaas u isticmaalay waxa si gabi ahaanba aan baabi'inay buu yiri nuclear programkii Iran so arki doonaa waxa ka soo baxa wararka ka soo baxa insha Allah taala Iran ayaa iyadu telegramka waxa la soo sheegay Ali Khomeini in uu hal mar kaliya uu ku soo celiyay hanjabaadiisii hore oo ahayd hadii dagaalka uu sii socdo in ay talaabo adag qaadi doonaan damage ama waxyeelo aan laga soo kabanna ay dhici doonto intaas ayuu isna sheegay marka waxay share gareeyeen telegramka odayga wixii ugu jiray marka inta ayaa cusub insha Allah taala updates ka soo daba dhacaya